goluhu isbaaro ma aqbali karo waa in golaha loo ogolaado laba state-kuba in si siman oo xor ah ay u doodaan. xildhibaan Khadar Cali Xakiin oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo CBA kula hadlay magaalada Berbera waxa uu wax laga xumaada ku tilmaamay in golaha wakiilada uu ka tirsan yahay si duuduuba ay ku ansixiyaan iyagoo aan ka doodin miisaaniyadda sanadeedka 2022 golaha awoodihiisa ay ka mid tahay inuu xeerka miisaaniyadda ansixiyo qodobka 5-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa faqradiisa kala duwan ayaa siinaya awoodaha ah in goluhu uu ka doodi karo ansixin karo miisaaniyadda xeerka miisaaniyadda waxaan oran karaa waa xeerka qura la tacalluqa financial issue ama dhaqaale goluhu gaar u yahay ee aan marin golaha guurtida dabcan shalay waa la ansixiyay hal ansixiyay waxa lagu ansixiyay 57 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada baa ansixiyay laakiin say ku qurux badnayd anigu waxaan dareemayaa say ku qurux badnayd in ahayd in dood la geliyo in dood socoto laba week ay dood socoto waayo in badan baanu darsaynay miisaaniyadda oo aanu akhriyeynay oo ku indha go'nay shalayto sida u dhaceen aanu habi kumaan ahayn runtii markaa shalayto runtii waan ixtiraamayaa go'aanka goloweynaha oo 57 xildhibaan oo kamid ah golaha baa gacanta u taagay gacanta xildhibaan kastaan xaq buu leeyahay gacantiisa iyo siduu taagayo qaabku go'aan qaadanayo xildhibaanadu xildhibaano ma aha iyagu waa xildhibaano kala madax bannaan xildhibaan golihii idinka horeeyay shacabka Soomaaliland waxay ku dhaleeli jireen in duuduub wax kasta oo xagga xukuumadda ka yimaada lagu ansixiyo rajo badan bay shacabku ka filayeen haddii kuwii ugu horeeyo tan miisaaniyadda ay ka mid tahay duuduub ku ansixiseen waxa ay bedeli kartaan shacabku idinku sugay maxay tahay waa runtaa su'aal wanaagsan weeye anu waxaan oran karaa waxba aan bedeli karnaa ma jirto waxaan bedeli karnaa ma jirto waxaan oran karaa anu ma garan karo sababta dadka kan Jamhuuriyadda Soomaaliland ama dadka kani horta dad wanaagsan dadkeenu waa dad fiican waa dad qalbi wanaagsan laakiin nasiib darro haysata nasiib darrada haysta weeyaan cid kasto ay hoggaanka u dirtaan ama cid kasta ay aqalka u dirtaan way xumaataa sababta wali alaanka cilmi baarayaasha ama researcherska gudaha maxalliga ahi waa inay baaraan habka way aniga oo markii hore aan tartamayay anaga 2 xildhibaan oo markaanu tartamaynay wanaagsanayn oo ahayn xildhibaano wanaagsan oo dadku hanway yihiin markaanu aqalkii galay maxaana xumeeyay madaxweynaha ama madaxweynayaasha marka la doorto ay galaan gudaha maraarta galaan soo fadhiistaan gudaha halka looga arrimiyo dadku filashadoodu way isbedeshaa marka ma dadka xun oo ilaahay man dadkan u jid bixinayn ma dadka la doortay baa xun ma yeyno habaaranahay oo habaar guud baa ina haysta anigu sababta aniga laftaydu way isweydiinayaa dhinaca kale xildhibaan Khadar Cali Xakiin waxa ugu baaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed inuu sharciga ku soo laabto isla markaana uu wali fursad haysto qofka wax way ka khaldami karaan mararka qaarkood qofku wuxuu ildoofi karaa laakiin wali alaanka wax isleeyahay fursad buu haystaa shirgudoonku ama gudoomiyahayagu oo ku shaqeyn karo qaabka dadku doonayay xalay wad arkaysay anagu dadkaanu ka nimid oo dadkaana soo doortay xalay wad arkaysay social media dadku raalli waxay ku yihiin in wax walba la faaqido laga doodo oo la fogoro oo marka la iswadaariyo marka wali alaanka fursad buu haystaa gudoomiyuhu oo waxyaabaha ka khaldama ama waxyaabaha uu ildoofo uu ku sixi karo in sharci ku soo laabto wali fursad buu haystaa in uu wax walba saxo waayo hadda waxaan joognaa 6 bilood waxaan dhaamin baanu joognaa marka wali waqti buu haystaa gudoomiyuhu oo ku sixi karo wax kasto khaldan oo golaa ka khaldan waxaan jecel lahay wax la fuguray oo hariyan wax cunaha mari kara bulshadu liqi karto ka daadegi kara ku farxi karo inaan mar walba bulshadii aan u soo bandhigno oo keeno goluhuna wuxuu ku shaqeeyaa dhaqan la yiraahdo culture la yiraahdo go'aan gole oo habdhaqan golu leeyahay habdhaqan ma laha habdhaqan xildhibaanaysan oo kaliya habdhaqan gudiyeysan male habdhaqan shirkudoonaysan male macnaheedu waxa weeye shirkudoonku wuxuu jeergareeyaa go'aanka guud ee golaha miisaaniyadda qaabka marka looga doodo marka dambe
ugu dambaysa macnaheedu maaha in miisaaniyadda la diidayo miisaaniyadda waa la ansixinayaa qarankani wuxuu ku socdaa miisaaniyaddan ansixino ee laga soo baxda golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland buu qaranku ku kala socdaa waana xeerka qula exaano anagu khaas u leenahay sababtoo mar laba warkan waa la ansixin lahaa miisaaniyadda laakiin dhibta jirta wax weeyaan dee dood lama ogolaan xildhibaanadu inay doodaan xildhibaan ka mid ah xildhibaanadu xildhibaan maxamed abiib dabcan wuxuu u diyaarsaday doodiisa wuu diyaariyey wiigag badan buu diyaarinayay in badan buu la fakuray dabcan waxay in loo sii daayo loo ogolaado inuu doodiisa dhamaysto bay ahayd oo loo sii daayo waayo macnaheedu ma aha dooda marka la jeedinayo in dooda gebigeeduba lagu wada daro miisaaniyadda laakiin waxaan doonaynaa in shacbigu ogaado oo xog helo waayo shacbigu waxay leeyihiin xuquuq helitaan xog right of getting information sidoo kale xildhibaanku waxa uu xusay in ay jiraan guddiyo is-abaabulay isla markaana jidgooyooyin u dhigtay fariimaha kala duwan ee soo gaadhaya golaha wakiilada sida uu hadalka u dhigay isla markaana aan xildhibaanada lala wadaagin waxa jira jidgooyooyin wax la yiraahdo jidgooyo in ay isbaaro dhigtaan guddi ama cid isbaaro dhigato goluhu isbaaro ma aqbali karo waa in golaha loo ogolaado labada state kuba in si siman oo xor ah ay u doodaan nin walba intuu doodo waayo time ina xadidayo oo time ina xiraya ma jiro in ay ogolaadaan in la ogolaado in golihii doodo oo aad u doodo la faguro wax walba hor yimaada kadibna markaa go'aanka ugu habboon uu ka qaato way xildhibaan guddidaanba qoladaas sheegtay in jidkooyo golaha u dhiganayaan maxay ahaayeen xagee si awoodda ka haystaan maaha qolo qura maaha business committee-ga kuwa la yidhaha ama guddi hawloodka waxa weeyaan xeer hoosaadka ku caddahay waxa weeye guddida shirgudoonka iyo guddoomiyayaasha guddiyadu mararka qaarkood ba waxa laga yaabaa inay shir galaan fariin ka timid golaha u timid golahu xaq wuxuu leeyahay fariin kasta ama wax kasta oo u yimaada ama xidhiidh kasta oo ay sameeyaan shirgudoonku ama dhaqdhaqaaq kasta oo ka dhaca golaha dhexdiisa in goloweynaha la ogeysiiyo oo lagu wargeliyo goloweynuhuna ka qaato wax la yidhaha go'aan gole oo dabciga goluhu ku shaqeeya ah go'aan gole go'aan qof maaha go'aan gudoomiye maaha go'aan shirgudoon maaha go'aan business committee maaha go'aan guddi maaha dhaqanka goluhu waa go'aan gole waxyaabaan codsanaya waxaa ka mid ahaa in la soo dhammaystiro gaar ahaan degmada aniga layga soo doortay maydh ee dadka oo dhan ka soo wada jeedaan dabcan cid walba oo laga soo doortay madaxweynaha oo deegaankiisii oo dhulkiisa oo ku tafiirnaa iyo dadkeeno dhan marka maydh kumaan arag miisaaniyada dowladaha hoose kuma jirto dabcan laakiin waxyaaba ka maqan baa jira oo tii dowladaha hoose inay hortimaad ahayd taasna laakiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda baan ka codsanay inaanu iyadoo gaar ah helno hadii la hayro Ibrahim Chokar CBA TV Berbera